بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين مركا لغا هدلaya fidrada waa zakada la bixiyo bisha Ramadaan markay dhamaadka tahay ama ay dhamaato fidran waliya zakatu fidri waliraahda sadaqatu fidrin waliraahda zakatu fidriga walaalayaal waa farad waa waajib rasuulka kaleey salaatu wasalaam ayaa farad yeelay soo tilmaamay xadiiska ibn Umar wuxuu tilmaamayaa inuu rasuulka kaleey salaam farad yeelay zakatul fidri waa farad marka hore maxaa la farad yeelay waa suus raashin ah yaa lagu farad yeelay qof kasta oo muslim ah ha weynaado ha yaraado rag iyo dumar wuxuu doona ahaado xataa hadduu san qaan gaarin xitaa waa zakada fidriga waa laga bixinaya oo waalidkiisa baa ka bixinaya xitaa waxa banaan in laga bixiyo ilmaha uurka ku jira sida uu sameey jiray سيدنا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وأرضاه لكن واجب معهن إنما وركو جر إن لقى بحي واجب معهن لكن وصنه وفي عنته سجاد فري مركب حرر وين نوجانه حكم كذي وفرض بانوني وحلا بحين ينا والراشين وحلا جهرنا وادت كمسلمين تاع وحلا السين وادت كمسلمين تاع أو مساكين تاع waxa la bixinayo waxa raashinka laba qaab ayaa loo eegaya ama loo dhigaya mid waxa weeyaan wax la miisaamo raashinka la miisaamo sida bariiska iyo wixii la midka ah bariiska iyo timirta wixii la mid ah waa la miisaama waxa laga bixinayaa waa 2 kiilo iyo bar bariiska 2 kiilo iyo bar ayaa ugu yar hadii aad ka badisana dhibaato ma lahan waxa u banaan qofkii half lor bariis ah halfkiis ama asoo in ka badan inuu bixiyo waa u banaanta ziyada dib ma keento laakiin 2 kiilo bar baa ugu yar waa wax la miisaamay sida maxaan ku yiraahdaa timirta zabiibka ama canabka waxa loo yaqaan bahalkan zabiibka noqday iyo bariiska iyo wixii la mid ah raashinka lagu bixinayo waa raashinka umada magaalada ku nool ay isticmaasho ayaa la bixinayaa haddii waxa la beegayana waxa la soo qaadana cabir ahaan 4 madaal ama 4 koomb wixii la yiraahdo saliid qumbaha gasaca weyn ee saliidaasi lagu keeno ama narjiinka loo yaqaano 4tiisa baa la beegaya waa galay digirtii wixii la mid ah 4 baa kaasna la beegaya yaa la siinaya waxa la siinaya masaakiinta iyo dadka fuqarada ah waxayna ku waajibaysaa qofka heli kara habeenka ciid imaaninta ciida raashinku haysto wax ka badan u baahan yahay 24 saacadood raashinku oo haysto wax ka badan heli karo ayaa la siinaya yaani ay waajib ku tahay waxayna ku waajibaysaa qofka inuu ku bixiyo goobtii ay ku waajibtay zakada fidriga goobtii ay ku waajibtay qofkii soonka meesha ugu dhamaaday ama uu joogay qofka yaani martii zakada ay ku waajibtay ayaa laga bixinay ayuu ku bixinaya ma la naqli karo meel kale ma la geyn karaa culimadu waxay leeyihiin asal waxa in la naqlinin laakiin laba xaaladood ama laba arrimood hadii jiraan zakadii meel kale waa loo rari karaa tusaale ahaan qofka zakada ay ku waajibtay meesha uu joogo hadama zakada looga baahanin waxa leeyahay dad u baahanaa jircana waa dhici karta wadamada qaar ama dhulka qaar dad masaakiin iyo dad shaqeyso oo xoogsanaya waa jooga ama waxan tile waxa ay leeyahay meel kale aad u diriisaan oo waxa u banaan dadka tusaalahan banaanka jiro oo kala Soomaalida inay lacag intay soo dirtaan ee ay Soomaalidu lacag u soo diraan ay qof soo wakiishaan ay yiraahdaan inta soo qofood raashinkooda naga bixi lacag lama bixinayo ee waxa la bixinayo waa raashinka weeyaan طيب xaaladda labaad waxay noqon kartaa oo lagu naqli karaa zakada si culimadu tilmaamay wax weeyaan masaakiintii meesha kula joogtay in badan oo kamid ah waxbay heleen waxa dhici karta in wax badan oo masaakiinta kamid ah in wax heleen marka waxa dhici karta in jirto ay jiraan dad qaraabo tihiin ama dad kale ogtahay ka baahi badan laakiin magaaladii ama tuuladii ama deegaankii aan kula joogin ayagana waa u naqli kartaa marka waxa dhici karta dadkaas kale loo gudbinaa la dhihi karaa
waxa la bixinayna waa raashin ee qiimo ma ahan culimada qaar waxay yiraahdaan qiimo waa la bixin karaa sida madhab Abu Xaniifa radiyallahu ta'ala anhu ardaah uu qabo qiimaha waa la bixin karaa laakiin waxaanu leenahay xilligii nabiga kaleeyhi salaatu wasalaam waxa la bixinayay waxay ahaayeen raashinku baa la bixinaya nas haduu yaalan nas kalma khilaafay hadina macna kale ujeedo kale laga lahayn dad qaar waxay leeyihiin waxa maskiinka u fudud 2 kilo bariis inta sii lahayd lacagtiisa inaad siiso waxa la dhihi karaa hadii taas la yiraahdo waxa ka dhalanaya nusuusa in la tacdiiliyo ama aan nusuusi si sax aan yani in loo shaqeyn aan la doonin oo aan la dooninin sababtoo ah xogtihiin zakada xoolaha geela looda ariga zakada laga bixiyaa waxa leeyahay 40 neef oo ari ah laga bixiyo hal neef oo ri ama hal neef oo ari neef ari qofka qunso iyo in lacag loo cadeeyo yaa u fududaanay waxa u fududaana lacagta haddana neefkii baa qaada leeyahay hadii geel leeyahay uu noqdo wax la bixinayna neef geel qofka inuu qomin waa laga yaabaa ay u fududahay inuu lacagtiisii la siiyo kaash aan loo siiyo hadii liira marka fudeed baa la eegiyaa taasna waa la fiirin lahaa marka zakat firiga wax la bixinaya waa qiimo ma ahan ee waa lacagta wax la bixinaya hadii ay dhacdo dadka qaar inay qaataan fadwada bacd ulama ama madhab Abu Xaniifa oo ah inay qiimo ku bixiyaan way ka ansixaysaa laakiin waa ala khilaafi sunnati nabi sallallahu alayhi wasallam zakat firiga goor ma la bixinaya marka waxa la bixinayaa saddex marxaladood bay maraysaa zakat firiga bixinteeda koow waqti ay banaan tahay waqti ay fadli leedahay iyo waqti ay waajibayso waqti ay banaan tahay sida madhab Shaafici uu qabo madhab Abu Xaniifa naftigiisuna uu qabo waxa weeyaan bish Ramadaan haday dhalataba waa la bixinaya bish Ramadaan haday dhalato waa la bixin sida uu fadli badan waxa weeyaan maalin ama laba maalin ka hor ciid in la bixiyo wasoo uu fadli badan Sayyid Ibn Umar radiyallahu ta'ala anhu ardaa uu sameey jiray goormay waajibaysaa waxay waajibaysaa bishii Ramadaan markay dhamaato oo marka ugu dambaysa habeenkaas ku xiga la arko bishii Shawaal xilligaas waajibay waajibkeedan wuxuu soconayaa ilaa salaada laga galayo waajibkeedu wuxuu soconayaa ilaa salaada ciid laga galayo salaada ciid wixii ka dambeeyo hadana qofku cudurdaar rasmi uusan haysanin duruufo gaar ah oo qasba inay jirin sida firi noqon mayso nabiga wuxuu tilmaamay kaleey salaatu wasalaam oo amar ku bixiyay in la bixiyo qabla khuruuj الناس ila الصلاه بعد الصلاه qofkii ciid zakat firiga bixiyana wuxuu noqonaa waa sadaqa caadi buu noqonayaa culimadu waxay ka hadlaan yiraahdaan waajib miya in la qadeeyo hadii tagto hadii duruufi qofka ay ka tagsiisay hadii soonka ka tagay qofka Soomaa duruuf uu tagayay salaadii baa qof duruuf uu tagayay inuu qadeeyo ay waajib ku noqonaysa markaas uu qadeeyna waa hadii duruuf jirto hadaysan duruuf jirin waa sadaqa caadi bay noqonaysaa zakadii way ka dhicayso qofka laga rabo marka waxaan yiri waa 24 saacadood wuxuu cuni kara wuxuu heli kara yuu ka bixinaya qofka marka wuxuu ka bixinaya naftiisa iyo cid kaas oo mas'uul ka yahay sadexaaskiisa caruurtiisa uu ka bixinaya ma banaantahay in laga bixiyo dad waxa dhici karto Ramadaanka kula afuray kula suxuuranay kula joogay ama qaar ku shaqeynaya baa jirta inay kula yani maragtay Ramadaan kula joogo ma ka bixinaysaa waajibkugu ma aha laakiin waad ka bixin kartaa min baabi tabarruc inaad ka bixisaa way banaan tahay laakiin waajibkugu ma aha in laga bixiyo qof wax waajib lagu leeyahay waxa asal ah rasuulka kaleey saanin baa u yimidi ama waxa loo daliisana dhigi karnaa waxa u yimid rasuulka kaleey nin dhahaya xaaskayba maalin Ramadaan aan ku dhacay maxaa laga rabaa yani xaaskiis maalin Ramadaan u galmooday nabiga wuxuu tilmaamay wixii laga rabay oo adoo inuu xuray haduu heli kan la bilo xiriirta inuu sooma ama inuu quudiyo 60 miskiin nigu xuri inta dhan ma heli karo oo iska fadhiisay waxar ka bacdi nabiga kaleey salaam waxa loo keenay weel ay ku jiraan 15 suus oo raashin ah markaas intuu u yeero wuxuu yiri kaalay oo adu iska sadaqaysa buudi markaas nigu wuxuu yiri xadiis saxiix ku yaalay cid ana iga baahi badan ba kuma nool Madiina anaaba u baahanba nabiga intuu qoslay kaleey salaam wuxuu yiri ordo bal ehelkaada si marka in laga bixin karo qof kale meesha laga qaadanaya maxaa jira waa kafaar qofka ku dhac laga rabay idan qofkii oo yani marat Ilaahay subhanahu wa ta'ala wax siiyay inuu wax fiican bixiyo wax aad heli karto wax ugu fiican aad bixiso waxaan baraarujinayaa caanahan aan hadda isticmaalno dadka magaalka ay isticmaalaan
ama beledi baadi hadda aad loogu isticmaalayo caana kooso ama wixii lagu magacyada kala duwan leh ama ankar haliir ama magac walba ha loo bixiye caanahaas gasaca waaweyn waxaa jira 2 kiilo ibar ah ma ku ansixi zakaat fitri ma ku ansixaysa haa way ku ansixaysaa لأنه waa 2 kiilo ibar qiimana wuu leeyahay dadkuna caani bay yani maan u yaqaanaan waa la cileeyo qaar baa cileeyeen waxay yiraahdeen caanahaasi waa wax la farsameeyay qudaar iyo wax la shiiday alaab la isku keenay oo caana kaliya oo caani xoolaha ma ahane wax baa ku dhex jira dadku maxay u yaqaanaan caani bay u yaqaanaan cufigooda baa la fiirinayaa maadaama caani yaqaan waa ku ansixaysaa zakaat fitriga inay ku baxdo way ku ansixaysaa marka waxaan ku dardaarmo walaalayaal in laga farxiyo maalinta zakaat fitriga ciida in laga farxiyo muslimiinta gaar ahaan dadka masaakiinta saboolka cidii xitaa heli karto dad inay ciid siiso ay dhar u gado inay u gado cidii heli karto ilaahay subxaanahu wa ta'aala awood siiyay inay dadka ay garab siiso وين قرب لسه ما أنت فرحة وين لسه قيب سوى لاليال ده كordon وين اسمه جستان حكمة وحارة إنه كسو جبية محل لوتشي زكاة فريق هرت لا بأرهم بس زكاة فريق لوتشي دي ظهرة للصائم وضعمة للمساكين سورك بات الإمام عليه الصلاة والسلام قفك الصومن أخذابا كدعي انتو صونا صون كسو جفف إيا مال كدعبا كدع هي إنه محن كل هذا وحي خلد وكدعي كب أي نقط ولوتشي دي لبا حكمة كل واحد تهي طعمة للمساكين مساكين تنقود بيوتها أو مساكين توحي يعني ما رأيتي كفرحة يعني مالين تاسي إيهابين كاسي إيمان هاسي إيه وحفي عنها لان وحابنا ولا ليال زكاة فرقة لبدا كيلي بركة وقفك أوب حنية أما قويس كيس أنت واسكول وفتاه لبدا كيلي بركة إنه كلا قيبية أو كيلا مسكين سية كيلا كالمسكين سية نص كيلا مسكين سية وبنانته وعابنا أننا طوان قفوض أنت زكاة نجوا واجب تزكافير نجوا واجبي إن هالمسكين أنسين ويبنانته وحابنا معلمين تين لسي ويبنانته لكن واجب معهن معلمين تقر أيها شرط كده وحيد هذا عنو قدوك شيء دقنا وإلا وإن فريس لك أنا هديك لنا فصح مجرو تصح معهن لكن ملسيك راها معلمين مساكين تيكميدين ويش قيسان لكن مساكين تيكميدين إنك سو يدعي كرتو والدين تمعلمين ترسومك أم مشاركة السينة مع العقد السينية أو يعني عم كسر خدمة ودوكس اللي هو بحي السينية إني بكب معلمين كذا غالبين وحبا المعلمين تهيسان يدعي كرتو لكن لا سيوك بنات أيضا ومشكلة إلا هذا ملهن إن شاء الله تعالى وحن رجينا الله سبحانه وتعالى ويدي سنينا إنه زكدي نجا أقبله صونك عن صون نجا أقبله ضد كان يكود دالان عبادة سي وجودن لهاين سي وناكسن أي وجودان هل قدام بان راعينا يا أكو سابسن آداب تعيد حلونا هاي مالين تعيد أنت بدن مسلمين توي فرحسين وابس سيدي يهيم دمانتو فرحات مالين فرحات ويان ما دام مالين فرحات أي تهاي وحدع أخضاء أما خلدا بعدع يعني محدع جفف وأن الله بهنين حضرتك سامر قال إن اللي هاي باختيار نصيب إيو يعني مرتي تمشلين أما يعني مرتي دالحيسو أي كده نكرتو يعني حماته أي كده نكرتو maalinta ciida walaalayaal farxad baa la muujin waa la farxaya muslimiintana waa laga farxinayaa guriyahana waa la camirayaa ilmaha waa laga farxinayaa reerka oo dhan xataa cunada waa la bedelayaa waa libiska waa la libisanayaa waa la sahanay guriga dhin xataa waa la qurxin karaa waa la bedeli karaa laakiin ma aha in la yiraahdo munkar in la sameeyo sax ma ahan aadaabta ciida wala ilaalin walaal waxa kamid ah in maalinta ciidul fidriga qofka soo cuno raashin waxa ugu fiican waliba timir inuu soo cuno oo 3 hal 3 5 7 9 3 ku soo cuno idan aad bay u fiican tahay waxyaaba ciid la iska doonayo oo aan arintaas raacinayna zakaat fitrigana waa kamid walaalayaal waxa kamid ah in waqti hore la dukada saad ciid fidriga aan dhahay waqti dhexe waqti dabe inta badan hadda reer magaalku iyo maxaan ku raad waxay dukadaan ciid fidri ciid adha hal mar عيد الفطر وحربا إن لسوا قراعده أو لسوا شاكيسو أو إن لسوا نلعده كبعد مصليه أما مال برحده هو وين أما مساعد كلا تجي لا تجو أو رجع يدمرنا أي كسر قيب جلان أو أي نقطة مظاهرات أما إسقاطات وين إيه الله سبحانه وتعالى لو بريه عبادة خير كلو موجين إنه نقضى بالدون ولا ليال مركب حنكون دار ما ولا ليال آداب تعيد هالإلالية dadaalna lagu bixiyo in si sax loo cibaadeyso adiga oo 20 ama 30 maalmood soo soona
maalintii ciidda haddaad xumaato samayso ama munkar aad samayso khasaare bay kugu noqonaysaa. hada wabillahi towfiiq. wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatuh.